magaalo xeebeedka Hobyo waxay la dhibaatoonaysaa ciidda taa oo ku sii fidaysa magaalada waxaana ay qarisay ciidan guryo badan heerkulka dunida ee sii kordhaya waxa uu keenay inay dhalaalaan barafyadii yeelay cirifka adduunyada biyaha si dhalaalay ama barafkaas si dhalaalay ayaa ku soo darma badda sidoo kale badda markay kululaato biyaheeda ayaa bata waxaana hanaankaas loo yaqaanaa terminal expansion biyihii barafyada ka yimaaday iyo kuwii badda ee batay waxay sabab u noqdaan joogga badda oo kordha marka uu joogga badda kordhana waxa ka dhasha dabaylo kuwaasi oo sabab u noqda in ciiddii ama carradii ay soo sikato meelaha magaalooyinka ahna ay ku soo sikato sare u kaca joogga badda wixii ka horreeyay sannadkii 1990kii waxa uu sannadka ahaa 1.5 milimitir sannadkii 1990kii ilaa 2000 waxa uu ahaa 2.5 milimitir laakiin 10kii sannadoodii u dambeeyay sare u kaca joogga badda waxa uu noqday 3.9 milimitir taasi oo muujinaysa in joogga badda uu sii siyaadayo markasta oo heerkulka badda uu kordhana joogga badda ayaa sii kordhaya magaalooyin badan oo xeebta ku teedsan ayaa la saadaalinayaa in ilaa sannadka 2030 ay la kulmi doonaan musiibooyin isbeddelka cimilada ah haddii ay ahaan lahaayeen duufaanno daadad iyo carrada oo magaalada ku fida dalalka badankiisa waxay u diyaarinayaan qorshayaal ay ugu magacdareen National Adaptation Plan si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinkaas waxaana ay hay'adaha qaramada midoobay ka helayaan dhaqaalihii ay ku fulin lahaayeen mashaariicdaas waxayna dhaqaalahaasi ka helayaan Green Climate Fund, Adaptation Fund, Special Climate Change Fund iyo Least Developed Countries Fund Hobyo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dhibaatada ku qaba isbeddelka cimilada waxayna magaalada u baahan tahay in loo sameeyo wax loo yaqaano Sustainable Coastal Resilience laguna abuuro geedaha bacad celinta